hogaamiyaha ku-meel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Jibriil Cabdirashiid Xaaji ayaa aqalka madaxtooyada magaalada Baydhabo ku qaabilay gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ee Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray xaaladda abaareed ee ka jirto deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed, iyadoo hogaamiyaha uu ka dhageystay gudoomiyaha warbixin faahfaahsan oo ku saabsan heerka abaarta saameynta ay ku leedahay bulshada iyo dadaalada socdo ee lagu gaarsiinayo gurmadka degdega ah dadka ee abaartu saamaysay. Gudoomiyaha Sodma ayaa xusay in hay'adda ay ka go'an tahay dardargelinta howlaha gurmadka islamarkaana ee wado qorshayaal lagu xoojinayo gaarsiinta kaalmeynta bini'aadanimo ee degdega ah si loo yareeyo saameynta abaarta. Hogaamiyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Jibriil Cabdirashiid Xaaji ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo iskaashiga ka dhexeeya hay'adaha dowladda iyo kuwa samafalka si loo hubiyo in gargaar wax ku ool ah oo degdeg ah la gaarsiiyo shacabka ee abaartu saamaysay. Kulanka hogaamiye Jibriil waxaa ku weheliyey wasiirka wasaaradda qorsheynta gargaarka iyo la taliyaha sare ee xafiiska madaxweynaha arrimaha gargaarka.